waxaan tagi doonaa qaybtan colorka hada qaybtan colorka waxa weeyaan meelaha ugu faraha badan leh ee laga maamulo runtii colorka يعني صور كذا كذا كيسة waxaan doonaa kan waxa weey meelaha ugu muhiimsan ee Lightroom-ku uu ku fiican yahay oo waxaan sameyn doonaa qaybta hadda aynu taaganahay ayaa waxaan sameyn doonaa sawirkii in dhinacan aynu u yaro durkino inagoo runtii ka soo yaran doona casaanka faraha badan leh ee ku jira markasta hayb kadin xaga aanu durkay xaga ilaa huruudda in huruud badan uu yeelanayo hadaan dhinacan ilaa bulu badan buu yeelanaya laakiin waxaan isku day doonaa dhexdo imika uu noo taagan yahay in yar dhinacan aanu darano si uu sayo in yaro cadaana buluuguna aanu ku badnayn taas markay tahay soo kala qaxad ma doontaa qaybtan ay ku qoran tahay vibrancy-ga qaybta vibrancy waxaan sameyn doonaa iyadana in yar plus aynu dhahno xaga soo kala qaybtan saturation-ka oo saturation si caadi wax u qabtaa waxa weeye yani color-ka uu sawirku lahaa ayuu inta badan uu ku badiyaa wax rignaan buu siiyaa kadib waxaan sameyn doonaa saturation-ka waxaan isku day doonaa iyada in yar laftarkeeda ilaa 5 meelaha aynu ku darsano kadib intaasi markaad inoo hayso waxa soo kaatay xaga qoran tahay grading-ka noocyo fara badan buu leeyahay laakiin qaybta saddexaad ay ku qoran tahay highlights-ka oo inta badan laga maamulo iftiinka ayaad iyadana ii tagi doontaa kadib waxaad samayn doontaa qaybtan luminosity-ga ayaad in yar igu dari doontaa si wajiga iftiinkiisu uu si fiican ugu soo yara baxo intaasi markaad ii haysato iyadana xaggan waynu ka noqon doonaa oo waxaan tagi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay mix kadib waxaan sameyn doonaa colors-kan faraha badan leh ee halkan inoo yaala ee 8 aynu hadda mid isticmaali doonaa si sawirkii runtii aanu ka dhigno mid qurux badan waxa ugu horti doonaa ka casaanka kan haddana san dhinacan in yar riixada kaysa in sawirkii casaankiisa in yar soo baxayo qaybtan saturation haddana ku badanaa casaanka ku badan ka yaraanaya waxa soo kasoo doonaa qaybtan luminosity-ga caadi ku qabtay waxa waa brightness san ku dalaacno waxa arkaysaa in iftiinkiisa u badan hadana ka naaqusnana madow waa soo galaya kadib waxaan sameyn doonaa in luminosity-ga in yar iyadana aynu ku badino soo waxaan tagi doonaa midabkan ku xiga midabka inta badan waxa weeye waa ka inta badan maamula wajiga yani wajiga qaabka noqonay madow cadaan qaabka ka dhigi karto waa ka inta badan maamula waxaan sameyn doonaa isaga laftarkiisa in yar aynu ku darno xaga soo kale saturation-ka laftarkiisana in yar aan rabno inaan ka soo celino si wajiga casaanku aan naga badan luminosity waxa qadiim san luminosity-ga aan dalaco waxa ka in wajiga kaliya si fiican isku ka bedelayo oo awoodna u leeyahay casaankiina aan ka yareeyo soo kale cadaankiina aan ku balance gareyn karo marka waxaan u baahanahay casaan badan waxaan u baahanahay in yar aan ku daro si aanu casaan badan aanu iiga noqon wajiga inta markaad hayso waxaan tagi doonaa midabkan ku xiga ee huruudda waxaan isku day doonaa iyada inaynu ka maamulno background-ka dambe oo kale background-ka dambe darka in huruuddan ka dhiganay qaybtan saturation-ka isla madow baahan gelino oo ku yar darsan karnaa luminosity waxay sidii caadi u qabanayso waa iftiinka in marna ku dalaco marna uu ku dalaco marna uu ka naaqoso saadin ku baahan in yar ka soo naaqoso darkasa waxay soo galiyeen madow waa soo galaya saasan ku deysana in quality keena ma dhawa laakiin marka hore qaabka sawirka noo aha haddana sidii noo yahay waa arkaysa waan ku soconaa wali qaybtan dhan baan iska oranaa waxa jira runtii ayaan qar bixin qaybta mixiga waxa jira meelka runtii oo color-ka aad ka hagaysa waxa kamid ah hadii ma qorto xaga ku qoran tahay calaamad taada ku dhufto oo sarhan aan doorto koodhka color-kiisa aan ku adtaawado halkaas haddaan koos hordixana in yaanihi u bedelayo koodhka midabkiisa imka akhtar buu ka dhigayba waad arkaysaa haddaan kor u rixan halkaas inuu ka dhigay midab casaan uu ku jiro marka halkaas laftarkeedu waxa weeye yani waa si kale oo color-ka aad u baahan tahay in si gaar ah aad hagaajisto aad u maamulan karto hadda se uma baahin waxaan sameynaynaa waynu iskaga noqonaynaa kadib waxaan odhanaynaa sidii caadi markaan ka noqono waxaan ku noqon doonaa halkeedii hore ayaan ku noqon doonaa kadib dhan baan iska oran doonaa kadib waxaan tagi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay effects-ku kadib qaybta effects markaan nimaadno waxaan tagi doonaa sawirka zoom baan soo siisan doonaa waayo inta badan xaggan waxay maamulaan yani wajigaaga ama jirkaaga iyo qaabka u muuqanayaan kadib marka test haddaan badiyo wuxuu soo saari doonaa sawirka iyo aadiin qaabka waa haddii markaa fiirno ka hadlaya halkii wuxuu sameynayaa inuu kuu soo muujiyo haddii laakiin dhinacan aynu u badino waxaad arkaysaa wajiga wuxuu ka dhigayaa tixiin buu ka dhigayaa haddii markaasi filanyaxaas wuxuu soo deedan filankaasi inuu kaa soo yareeyo in wajiga tixiin buu ka dhigay soo kale clarity waxaan sameyn doonaa laftarkiisana in iyadana in yar aan ku daro wajiga halkaas wajiga wuxuu noqday saafi isagoo xataa la moodo runtii in filter oo kale lagu qabtay kadib waxaan sameyn doonaa waan ka noqon doonaa waxaan tagi doonaa qaybtan ku qoran tahay Figma 2 kadib waxaan sameyn doonaa iyadana waynu yara dhimi doonaa si markaas iyada wax loo socon markaad u baahan tahay
in sawirkaaga harro kale madow kale ka soo geliso ama haddii aad u baahan tahay in sawirkaaga meel gaar ah si gaar ah u muujiso oo isticmaali karta kadib waxaan soo dayay laftarkeeda si madow heeraan ka soo gelino kale in yar baan ka soo gelin doonaa madow kadib inta markaynu ka nimaadno qaybta detail dadka maamul karta laakiin wax badan kuma sii baahni waxaan tagi doonaa qaybta ay ku qoran tahay profileska qaybta marka aad profileska meesha waxa weey meesha sawirkii aad soo edit garaysatay aad ku dari karto filter ahaan aad ku dari karto marka qaab kala duwan buu leeyahay oo aad isticmaali karto mid kasta hadhow aad si gaarkiisa u siyaasan kartaa laakiin waxaan tagay maxaa ay ku qoran tahay ka saddexaad baan tagayaa kadib ka markaan imaado waxa ka sii dooranaya ka afaraad baan ka dooranaya adoo marka mar kasta waxa dooran doontaa ka ku haboon sawirkaaga editkiisu noocayahay imkaan kala tagay sawirka kuma haboon laakiin ku tusaya marka qaybta waxa ka muuqda xagan hoose wuxuu ku saaray meel tan naaqusi karto yani opacity-ga inaad ku badiso filterkii iyo inaad ka yareysaba hadii marka imika dib aan halkaasa uu ka sii yaraanaya oo halkaasa uu ka sii yaraanaya marka imkaan waxa rabaa in yar haddii ugu bato one baha ahaado ama se waan zero waan ka dhigi karaa ma baahniba haddii aan marka aan adigu u baahnayn imika sawirkii waad arkaysaa qaabka uu yahay marka hore waxa uu ahaa qaabkaasi waxa ka dambe iska huruud badan baa ku jirtay kaarku caadi ma soo muujisnayn imikana waad arkaysaa in background dambe uu isbedelay wajigii aanu ahayn waji casaan ku bedelay laakiin si fiican u muuqda runtii waad dareemi kartaa marka maxaan sameyn doonaa imika sawirkii waynu soo hagaajsanay talada ku xigta waxay tahay sawirkii inaanu save garaysano si sawirkaasi uu noogu galo gallery-geena